halkani waa xeebta degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ay maanta ka jirto arrin aad u naxdin badan. Wararka ka imaanaya degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in halkaas maanta lagu arkay haamo sumaysan kuwaas oo ay aad uga argagaxeen dadka deegaanka. Haamahan oo gaaraya ilaa 3 haamood ayaa berigii hore saaka ku soo caariyay qaybo ka mid ah xeebaha degmada Cadale iyadoo aan la ogeyn cidda halkaas ku soo daadisay. Inta badan xeebaha Soomaaliya waxaa lagu soo daadiyaa haraadiga sunta halista ah iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan. Dowladda Soomaaliya oo ay ahayd inay arrintan wax ka qabato ayaa iyada lagu eedeeyay in arrintan sabab u tahay maadaama ay heshiisyo badan u saxiixday dowladaha qaar ee sunta ku soo daadiyay xeebaha Soomaaliya. Haamahan ayaa laga cabsi qabaa inay halkan ku qarxaan, waxaana baqdin muujinaya dadka deegaanka ee degmada Cadale kuwaas oo ka cabsi qaba inay haamahan ku qarxaan oo ay waxyeello ka soo gaarto carruurtooda iyo dadkooda kale. Lama oga cidda halkan ku soo daadisay, waxaas arrintan lagu eedeeyay dowladda Soomaaliya oo iyadu heshiisyo kala duwan u saxiixday dowladaha qaar kuwaas oo qashanka iyo sunta iyo waxyaabo kaleba ku soo daadiyay xeebaheena Soomaaliya. Dowladihii soo maray dalka tan iyo burburkii waxay heshiisyadan kala duwan u saxiixayeen dowladahan, waxaana inta badan la arkayay xeebaha Soomaaliya oo intooda badan lagu soo daadiyay qashan iyo sun iyo waxyaabo kale oo aad u halis badan. fadlan daawada muuqaalkan sii share garay si uu bulsho badan u gaaro oo wax looga qabto arrimaha noocan ah. mahadsanidin daawadayaal. fadlan daawada ha hilmaamin inaad subscribe ugu dhiirigeliso, sidoo kale like raaci, share kana ha hilmaamin, sidoo kale qaybta comment-ga inoo la wadaag wixii muuqaalkan kaaga baxay. mahadsanid daawada.